صادو داون jirteen barnaamijka masraxa fanka ee muqdisho cable tv barnaamijka masraxa fanka oo idinku horkeena fanaaniinta Soomaaliyeed isla markaana ay kaga bugtaan dadweynaha daawanaya ee ku xiran masraxa fanka ayaynu hadba fanaan ku horkeenay caawa waxa barnaamijka martiin oo masraxa fanka caawa marti ku ah sidoo kale aan marti u nahay oo aan ka bogan doonaa kaalmiyada suugaanta Muna Xafiis Muna Cabdi Cali Muna Xafiis oo kamid ah fanaaniinta daada yar ee ku dhaqan magaalada Muqdisho سهم معاني عدك معاني لهي سي عاو منا يا برامج كم مرتقوا أو برامج كم مسرح فن كان نقول قيب جلسة أنا بفكر سنة إذا ما سوتشين يا وحنوم هالنقيا لما صاحب هذا سك عشان يدن كفرسم هذا يسودو كلا كاميرا ذا أو دي جي برامج كعاو يجي عبد الله سعيد سودو كلا وحن هالنقيا فرح زبير وكمذا كاميرمان هذا دنك مقالك قروح ذا بدن عاو نجا عاوين يا قدر يا أبو كر يسودو كلا السعدية عبد الشريش كجودهان صاحب هذا برامج كقروح ذا بدن قيب كافر سمدي سئي ودنك كلا مقالك يعني هالنقيا وحن ربع مسرح فن كينا نقول قالوا كسولويو منا حفيظ برامج كعاو مرتقى منا يكسولو استوديو مقدش كيبل يبرامج كمسرح فن ما شاء الله بقى كده هذا يمكن تعلمنا كده أدي منا سولو طبعا هذا نوفر فرح سنة عاو مسرح فن كينا منا حفيظ كان كينا يبرامج كقيبة كتاي كالمية السودان هدي عاو أيدوينه كهر قام دونان منا يسوون أكثر أوبران دونان طبعا هذا نوفر فرح سنة هاي منا مركز سولو horta fanka bulsho badan waa gaaray oo dad badan heesahaaga iyo muuqaalada muna quruxda badan way yaqaanaan way arkaan hadii aad isbarta caaw dadka daawanaya ee adigoo heesaya kaliya ku arkay muna xafiis wato ma horta aniga way muna halkaad ku dhawaatay waxaan ku dhashtay hawladaad degmada hawladaad gobolka banaadir way muna caaw كلمة سودان أو طبعا أي بدون هاد كذي هلي دونان سيدا واركيزا عاو مقال برامج كمسرح فن كأناد مرتكو تاهي ودادكو عاو مرتكويهين أدقنا عاد مسرح مرتكو تاهرتا ما شاء الله هذا أو فرح سنة dadka hadalku ma daalin doona waxaan u soo qaban doonaa heesta koowaad ee daafurka barnaamijka ah inagoo dib iskugu soo laaban doona wax badan ay suuraysan doona heesta koowaad ee aan rabo inaan dadka u soo qabto caawa barnaamijka daawanaya dooqa koowaad dabcan aniga soo qaban doono raba heesta halkaan aad nooga qaadi doonto naloo tumi doono dareen jacayl heesta la yiraahdaan rabaa in aan barnaamijkeena ku daafurno erayada heestaasi yaa kuu sameeyey هيست waxay ii sameeyay abwankayga aad u salaamayo Cabdirasaaq Dulqaas erayada iyo laxankaba sida iskale aad iyo aad muusikada iyo waxa iskale Yusuf Muumin Yusuf Sabxaayo waa sida way waxaan rabaa heesta dareen jacayl barnaamijkeena inaan ku daafurno oo aan ka dalbanayo caawa dhanka farsamada in muusigaas ay u garaacaan Muna Xafiis aynu ku daafurno barnaamijka may adiga iyo heesta dareen jacayl iyo daafurka barnaamijka سمعي عود من قلبي
عشقي على بطني جبارني خطابك تحايل خلقا إذا جبت قبال لعبتني كنت انت تبال عشقي على بطني يا حبيبي سيدان شلكو جنتاني أيان منطقو جعلهاي درنا كوبو جلانهاي نفتني كلك جرتان shalayku jantani ayaan manta ku jecelahay barima kugu jeclaanahay naftani ku lagu jirtaa
heestii daafurka caawa barnaamijkeena ahayd ee masraxa fanka muna xafiis ay dib inoo soo celi heestii dareen jacayl dabcan daafurka barnaamijkeena ahayd waxbaa ka dhacayo waxaan filayaa daawadayaashu haddaba in barnaamijka oo heestii koowaadba ay ka heleen iyadoo muna xafiis heesaheeda aysan kala dhicin oo dabcan aan wax badanna usoo wadna caawa munaay fankaagu halkee kasoo bilowda adiga fankeyga waxaan kasoo bilaabay sacuudiga anoo jooga oo yar markaas weliba 2008 ahayd aada iyo aad sidee marka adigoo qurbaha jooga xitaa aan dalka joogin kuugu suurto gasho aada isu tiri bal munaay adigoo weliba da-yar sidaan jeclahay fanaanad baa noqon kartaayo hibo fan baa kugu jirta wallaahi hogeygu ahaay waan jeclahay fanka in badan muddo ku hamiyey inaan fanaanad noqdo waan dadaalay markaa sacuudiga joogay hadda wadankii imid way ii suurto gashay sacuudiga ma safaraad markaas ku tagtay bay ahayd mise halkaasaabad joogtay halkaasaabad joogay waa meel halkaas la geeyey halkaasaa kusoo barbaaray alla fankaagu sacuudiga kasoo bilowday marka waayahay munaay ma jiraan fanaaniin aad markaas dhegeysan jirto aad xiiseyn jirto kugu sii dhiirigelin jiray fankoodo kale aad jecleed inaad hore usii socoto ama xilligaasba aan kugu dhiirigeliyay inaad fanka oo adiga aada u ahay taageeray amaad la socon jirtay fankooda hore intaadan soo gelin yaa kamid ah khadra daahir dhegeysan jiray in badan khadra daahir dhegeysaheeda waayahay muna dabcan heese badanaan caawa dadka usoo qaban doonaa inagoo hadba dhanka eegi doona aragtidii aad ka qabtay inta aadan fanka soo gelin oo masraxa aadan soo korin oo adigoo munaa heese aysan ku hirgelin iyo markaad soo gashay waxa aad kala kulantay islahayen laba kala yihiin isma lahan maxay kala duunaayeen marka maxaad islahayd awal ku fakaraysa intaadan fanka soo dhexgelin iyo markaad soo gashay wadadii aad kala kulantay bal inaad wax wanaagsan iyo niyada ku dhismatay dadku fanka qaar way ku dhigtoodaan qaarna dhaqsay kusoo baxaanoo mikrofoonka markuu qaato fanaannimo uu ku hamiyo qofku si fudud buu kusoo baxaa qofna uu ku dhigtoodaa bal aragtidaadii hore iyo markaad fankii soo gashay maxaa farqiga u dhexeeyay waxa farqi u dhexeeya horta sacuudiga markaan joogay aadan xariiri uga jiray waayo wax muusig tuma ma lahan haddaad muusig yeesho waxaadka kaa qabanayo ma lahan markaan muqdisho imaaday waxaana macnaha igu dhiirigeliyaanba garab weyn ay siiyey walaalkay qays ilkaasi halkan ka salaamayo abwaankeyga cabdirasaaq dulqaas abwaan cabdifataax caato abwaan saadiq laab saalex macalimadeyda يوسف سبحانه كله العسل التحسيس العسل داري انت صدق قرب ايودسيان دد واوين وجهليه maaragtay aan oran karo fanka kaalin weyn ku leeyahay Soomaaliya ayaa ku garab qabto muna dadka soo xusto dhanba kala ma dhacaan muqdisho marka timid marka fankaagii hore u socday dadku caawiyaan helay wasida kasimida ee dhisantay ma sha Allah abaan Cabdirasaaq heesi diibay aan qaaday ما شاء الله مدبتوني مركز كبعد سعودي قاعد بيجي مقدشة مركز تمدى إيدي تكون في المطفان كاقية منا ما حسوستا قيستي كورو ريسي أبوان كو اللي في هذه بعد قادو قيستي هذه حسوستا خل كل جيدي أمام قاعدي أبوان عبد الرساق هو خاصة اسمي هسه إنه حقيقة الجواب أما جواب أو تبعيره هس markaasasi gabdhaha maaragtay aadiya hadalla u dhiiba markaas aan ku jawaabay marka heesaaga waxa ku daafuratay aad soo qaaday hees jawaaba reeyo wax ka xasuusta mar la siin kartaa ka xasuusta aadiya balqaacna uga sii codkaaga macaan nimanka bahayno kaarkiisu marayahay jacaylku mariyoodo inaan lama kaftami karo waxaa kasii daranado kibista un helaa kaan yurubku noolba kibirigu dayaysaa ku joojin maaye kasiidaa haynaa kumaba hayste kasiidaa
istasay alla ilaahay ka sii daawade hadda isagoo Yurub joogo Yurub ku nool reedo heestaaba lagu dilay fanaanka marka tuwacir aad u jawaabtay Cabdirasaaq Bulqaasto waxaan u cusubay erey aad u culus oo jawaabo marka abwaanka qaaliga halkan ka salaamaya aad iyo aad waan salaamayna inaguna guud ahaan munay dadka hadalka kuma daalin doona kaalmaha suugaanta hadda badda ee caawa aan hayno kuwa ay dadku aad ka u xiiseeyaan waliba in islaana in kasto aysan kala dhicin hadba dhanaan ka yeegi doonaa marka waxaan soo qaban doonaa hees la yiraahdo jaar heestan jaar maxay ku timid yaasi ku sameeyay erayada maxaad ka ogtahay dhacdo ama waxay ku timid heestan jaar shukr Allah diba heesta sameeyay waan la yiraahdo aad iyo aad jaar marka maxay ka tarjumaysaa ama maxay ana jacayl waa qalbigii wadnaha jaar baad la tahay aad iyo aad waa hees jacayl jaar markii la yiraahdo waxa soo ma jaarkii guriga ama waa jaar qalbiga jaar la aad iyo aad laxanka yaa saaray laxanka waxa saaray الخليفة عاديات موسيقى يقوتون موسيقى سبحانية سيجي فرها لو قلت فنان كاد عرفته وحليها أما فنانين أنت بدن با وكم يديها فنك دور ونكسن وكقات سبحانية فنانين تداير يسكودها فنانين تبا أنت بدن موسيقى ذا أوتوما ما هيستا سجارة يعني أسوق بندون نادى دوينها طبعا وأن هيستي لبعض البرامج كوجت ولا شيء عاديات waxaan ka dalbanayaa qaybta farsamada in heestaasi loo garaaco waana heesta la magac baxday jaar dabcan hees jacayl ah heesta labaad ee caawa barnaamijkeena
شاذا حبيقا عطاني وشريريو جيبيو راحة كاغا قوي كاغا قوي نفتات وشعيرتيو عدان جمع شاذا حبيقا عطاني وشريريو جيبيو راحة كاغا قوي كاغا قوي هذا أراك وياي تيله البحر وشكات وجيحات سنتين تيذا لخاتم مرقرة عنده موقها وأراك وياي تيله البحر وشكات وجيحات سنتين عنون تكشيغنين شلي عذا دايهيو عجوكيو موقشدا عيان تشلا نفتوه أفاكو تشيربان هدا تشيرت مهلكالي عنون تكشيغنين شلي عذا دايهيو أبجوكيو موقشدا عيان تشلا نفتوه أفاكو تشيربان هدا تشيرت مهلكالي aynu dib kaga soo laabano heestii labaad ee dabcan barnaamijkeena masraxa fanka waana heestii markaasi la magacbaxday oo dabcan fanaanadu ay nagu tala gashay heestii jaar naxdisay dabcan heestan erayadeeda iyo anigu waxa la dhacay dabcan sida quruxda badan ee lagu luqeysay dib ayaan ugu soo laaban doonaa barnaamijkeena masraxa fanka oo daawadayaashu ay la socdaan waxaan markaasi aadi doonaa dhanka farsamada inagoo kaalmo suugaan oo kale aynu dhimay hidaad xiisa badan dalka daawadayaal masraxa fanka qeybihiisii hore ayaan dabcan guda jirnaa caawa faanol farikama qodno barnaamijka caawa waxa halkan fadhisa marti ku ah dabcan caawa masraxu waxa uu marti u yahay muna daawadayaashii anaguna waxaan marti u nahay heesaha dabcan iyo kaalmaha suugaanta iyo sheekada iyo barnaamijka waxay ugu tala gashay muna xafiis marka munana barnaamijka masraxu fanka caawa marti u yahay iyadana masraxay marti u tahay marka dabcan aad u xiiso badan yahay caawa barnaamijka muna fanka markii laga soo tago ma jirtaa xirfad kale oo aad leedahay oo ka baxsan hay waxaad isku daydaa dabcan waxaa jira fanaaniin iyagoo fankii ku jira ama shaqooyin kala ahaato ama wax kala ahaato ama xirfad kaloo yaqaanaan ha ahaato isku wadaan muna xafiis maxaa u dheer fanka horta fanka waxaa ii dheer waxaan ka shaqeey jiray markaan Sacuudiga joogay كوفير أنبو مشغل سوا تخان جوابها قرحين تهوى لو قرحيها عادي لكن أنت سيدا إما تكون فكرة إن شغالة سوا أنبو أك شخيرين
fankii miyaad kusoo qabatay kiin kusoo qabto kaliya ay muna macana ayadii shaqadii Sacuudiga lagu hayay Soomaaliya la yimid mase dhanka fanka ku jiitay oo aad dhanka fanka ijito fursad waan u waaynahay inaad dhankii fanka aad ku wada shaqooyin kale iyo howlo kale waan jeclahay laakiin insha Allah aad iyo aad muna waxaan wax ka weydiin doonaa hees dabcan wali muuqaalkeeda aan soo bixin oo dabcan dhawaan aad rajeynayso inaad soo saarto heesta waxaa la yiraahdaa seef halka dhigeeda maxaa laga sameeyay seef yaa sugu sameeyay erayada maxay ku timid heestan أنا كقلب أبوان كذا وحيسمي أبوان عمر بارخد عاديات لحن كحاسك العب زهيلة إن شاء الله مرة ساعتها بس إذا ولي طبعا ساعتها ولي صوم بحنو عاديات الرياض يسوى مكل قيسوي مناي مسي عاديات وهيس مركا عادية عاد البطي ومناهان كاتب عاديات محاي مركا heystan taabanaysaa dhacdahaan ma wax kugu dhacayba ama waxaad markaas la kulantay oo abwaankaa ka dalbataa waxay u dhacay maahan laakiin abwaanka maalin ameerkooda kulan markaasaan kuwa abwaan heysaan rabaa inaad ii samayso isla maalintaas ugu heystii ii sameeyey cabdiheelo meesha fadhiya liigu dhiibo waa la ila xameeyey muusigii waa keliyaha ka dhiman muusigii baan weli loo tumin waa rajeynaynaa halka ugu horeysay soo gaarto in dabcan muqdisho keebal ay noqotay halkan maadaama caawa halkanba ereyadaas waxay ka waqshin kartaa annagii daawadayaashaba sadreeda lagala cashaqadu seefa sahal la gaaray silic laguma eegtee sahal la gaaray silic laguma eegtee anna waan sitoo dareenkiisa qadhexe aan la sara kacaa haatan sii ziyaado xagaaga la isitaa waa isjacayla adiga kuwa jacaylka munaay adiga dalbada horta heesta oo lagu sameeyay heestana dalbada munay jacaylka kala maraya horta isku yihiin wallahi jacayl markii ugu dambeysay ma xasuustaba hay hadda wax jacayl yiraahdo wallaana noloshayda may waxaan leedahay aniga munaay heesaha jacaylka soo saare dadku qaarkood ay dhageystaan isku daweeyaan aniga jacayl waa isku nimaado ay maxaa waa jacayl ugu dhacay marka heesti kood ku daafureysay barnaamijka heesti dareen jacayl heestas qasa laga sameeyay kadib jacayl waa iska ilaa nacay oo hadda adiga jacayl isma soo gashaan maalinta si kale jacayl munaay heesaha waxay jacayl ugu badan yihiin marka والله أبوانين تمارتي يديبان أنا ويسكخاذا ما دي جرت دورت مسابوانين تقوليبا قارنا وإلى سورة سبان وإلى صوت علامة أبوانين تيدا قارنا أنا كتلبها عاديد أنا جد بدون وحابة إصلاحي منا إيو هيسي جعلك ما دام عند بيسنو عنا قانو منا جعلك لقى مصور لكن عاوز مصور قلنا مصور قلنا جعل وشيك عاو برد ما دام يساوي جعلوا بدنهين أنو لا المنور رجعل أنو وياهي منا معادر أنت مركز مسرح السعران تهاي هيسيسو واحد استرهذا waxaad dabcan ku taami jirtay marwan fanaanad inaad noqoto bulshadeedu ay garanayaan maxaa dareenta dareen ahaan markaad masrax saarantahay bulshada uga siisid hortaaganta wallaahi markaan bulshada hortaaganay waxaan dareemaa farxad aad u weyn anidan ka dhahaa heerkii maanta aad ku hayn jirtay amba aad usoo dadaashay muddo fara badan maanta taagantahay aad farxa waxaad ka mid tahay fanaaniinta dabcan hadda muqdisho jooga ay dadku aad u jecel yihiin heeseeda ay la socdaan muqdisho waxaa ka jira kooxo badan fanaaniin badan oo Soomaaliyeedna way joogaan oo daayira kuwa soo baxay iyo kuwa sanadihii ugu dambeeyay soo shaac baxay ururo badan oo fanaaniintaas ku jiraan jira adigu waxaad ka mid tahay fanaaniinta gooni socodka ama waxa jira ururta gaar oo jirto fanaaniin ay ku midaysan yihiin jiraan koox maaragtay waxaan nahay kooxda koonfur galbeed raadiya fanaaniinteeda koonfur galbeed baan ku soo qabanayaa kulay Baydhabo waad gaartay horta waan gaaray ka iga waran magaalada Baydhabo aad tagtay mashallah magaalada Baydhabo markii ugu horeysay tagtay
markii ugu horeysay ahayd hay baydhabo maasha allah aada uga helay dadkeeda maasha allah aada u dad jecel yihiin si fiican inuu soo dhaweeyay adiya maasha allah dadkooda iyo dalkoodaba way fiican waa sidaa reer baydhabo islaamina meel ka sii ka joogaaniyo iga waran magaalada baydhabo markaa tagtay waxyaabo kaa soo yaabiyey maadaama muqdisho aad joogtay aad ka tagtay gobol aad aado baydhabo aad tagtay caasimada ama magaalo madaxda gobolka baa iyo koonfur galbeed ba ay tahay waxyaabo kaa soo yaabiyey iyo bulshada dhexdeeda iyo magaalada inaad ku socoto aad soo indhayso fursado badan ma u hesho horta baydhabo sideed maxaad kala soo kulantay waan soo wareegnay bad webiga iyo beeraha iska webiga ku yaal qurux badan wadooyinkaas kasoo daadaawan soo socnaa soo kasoo laaban sidaas uma sii dheeraan aad iyo aad bandhig miyaad halkaas u aadamnay barnaamijkan u aadnay aad iyo aad adigii fanaaniin kale maadaama baydhabo aad tagtay hees maaya ma soo qaaday mismaameyha kooxdan heesay qaaday qalcada igu soo aadaani aad iyo aad qayb ka mida heestaasi oo ay qaadeen heesas maadaama ay tahay hees maaya baydhabo aad tagtay waxaan jeclaan lahayn caawa barnaamijka balqaac inaad nooga siiso in ka mid a heesaha maayga way ka xiisa badan yihiin kuwa caadiga dadka yaqaanee dhegeysta waxaad mudda kuwa kale inay ka xiisa badan yihiin dhegtaad usii dhegeysto xitaa haddii ereyada wax badan ka fahmayn ereyadaas caawa bal heestaasi maayga intii kugu soo aadamuna wax naga maqashay walaalnimidayinta iswehelada adi ii madaynaga wenina itaa etaa wenina etaa hoolay isla weela wana waxa laga wadaa walaaltinimada waaweynta oo dareemaysaa iyo isweeshiga walaalnimada waaweyn tahay isweheshadadii madaxweynahan hawshan isla wado kale aad iyo aad oo bulshadii iyo hees lagu dhiirigelinayo qaybtaas yaraygu soo aad iyo aad ma anigu waa fahmi karaa haddii lagu hadlaayo ama lagu heesaayo xoogaa laakiin ku hadal haddii la yidhaahdo ambaligay kuma heesin markaas ay ugu horeysay aad iyo xifdiska sidee ku noqdo marka ereyada heesta maadaama aadan ku hadlin xitaa waxa maasha allah si fiican ii xifdisay walaashay halkaan uga ka salaamayo canab saalex canab cawo نور كلسوني محمد مرسل علي سوريا العدالة أصحابتي بدنا هيك يحفظيان كان قاعدين الرياضة سيدة كقبل لهاي بدو مرة ويحيد مركا دادي كهر مركي كو فوجود مقدشات كتبت مركي بيدو لقته قبل ضلك أم دبتها الكيد قاعدة بدو يجوا هريسة بندقي هو الرياض عام قال بدو aadiyaad way dhanka kaalmaha suugaanta dib ugu soo laabanayna caawo dadku hadda sheeko badan ma baahna muna xafiis baad halka fadhiso waa kaalmihii suugaanta hadba dhan aynu ka eegayno ay dadku naga sugayaan oo barnaamijka ay dabcan caawo nagula nasanayaan maadaama masraxa fanka caawo kale ay dadku la socdaan waxaan jeclaan lahaa markan heesaha caawo aan halkan ku haynana qaybka ah oo noogu luuqeyn doonto maay inaan soo qabto heesta nafla qaybsi bal maxay ku timi dartaa heesta nafla qaybsi waa qiso dhab ah waxayna ku dhacday gabar haadiya hodan afrika fanaanadeena weyn ee soomaaliyeed ayada haysta abwaanka iga codsatay inaad qaado abwaanka marka iga codsaday ugu dhaweysas waa qasadhaba noocaasi noocaasa inaad qaaddaa la rabaa aadiya waxaan ka yareedan abwaankaas kale waa sida ku qaada waayahay dabcan waa hees jacayla nafla qaybsi wadaysta hodan afrika qisadii ku dhacday mana xafiisna ay ku luuqeynayso dabcan waa hees weyn oo laba fanaanadna ay ku luuqeynayso fanaanad kalena ay ku dhacday dabcan mana xafiisa noogu luuqeyn doonta heesta la magac baxday nafla qaybsi waxay ka mid tahay heesaha dadku ay u jecel yihiin ay ku luuqeyso muno waxaana markaasi aynu munay dabcan adigii daawadayaasha u kala baxaya heestaasi nafla qaybsi oo caawa barnaamijkeena qaybka ah
حاضنا نبرد عشقك سنيدا isla dhari jirteen hadduu nolol kale u weehdo ruuxaad nafta qaybsateen haddana nabarada cishqiga sunniyada isla dhari jirteen hadduu nolol kale u weehdo Sudah
bisuga hela bisuga hela sidee bisuga hela bisuga hela heestiina la qaybsi dabcan ma heestan erayadeeda marka aad eegto inkastoo qiso ku dhacday ay tahay sidaad ii sheegtay wadan Afrika waa qof laga tagay oo dabcan qofkii nolosha la wadaagi lahaa oo meel kale ka aaday alla ilaahay heestan way gadan tahay erayadeeda waxaana ka mid ah soo dadka ay u jecel yihiin oo ay heesaha dhageystaan inkastoo ay mar walba dhageystaan ma waxa jira dad ama fanaaniin fankooda qiimeeyo la socdo dhageysta adigu heesaha dadka kale marka laga soo tago kuwa ma dhageysataa maxaa dhacay marka dadka way jecel yihiin oo way dhageystaan fankaaga way la socdaan adiga miyaan kugu macaanaysaa inaad dhageysto ka waran fanaaniinta kale marka la yiraahdo dabcan kuwii hore ama kuwii dhexe ama kuwii dambe fanaaniin heesoo jecesho dhageysato ma jiraan kuwii hore waxaan ka dhageysan jiray Abdalla Daahir hadiya fanaaniinta hadda ama dhexe fankooda qof aad heesiisa jecesho adiga aad dhageysato ma jiraan fiska farxi fiskayseeda lagama soo baro hadiya dabcan waxaa jira muuqaalka heesta markay erayada lagu sameeyo laxanka iyo muusigii uu gooni yahay in muuqaalka cid ku qabanayso gaar ay jirto ma adiga dooranaya mise abwaanka iyo waxaad iska kaashanaysaan ama ka caawinaya qofka dabcan saxaabtaada kale kugu dhow mise adiga qolada muuqaalka ugu quruxda badan ku soo saarnaa dib ahaan marka tay cusub soo qaadayso ma adiga doorta mise dhanka abwaanka iyo isku xiranka aniga doorta waxaana ii dooro halkan aad ugu salaamaya walaalkay kaamiristeeda khaaska ah Saalim Said Umar Baato asna ma sha Allah garab weyn ugu siiyay fankeyga oo soo garab qabtay kaalinta koowaad ka qaatay adiga isaga ii dooro qaabka uu doowayo iyo istaanka dharka iyo maaragtay waan la tashtaan aan la taliyay khaaska ah kaamiristeeda leeyahay sida aad salaamaya isaga si gaar ah kala taliya dhankaas wayahay heesahaaga ma waxa jira ma jira abwaan si gaar ah badi heesahaaga ugu sameeyo aad ku xusto aad ku xiran tahay oo maanta haddii aad erayo u baahan tahay isaga aad u geyso oo abwaankiisaaga ugu badan sameeyay abwaankiisaaga ugu badan sameeyay waa Cabdirsaaq Bulqaas oo badi erayada iyo ku sameeyay heesahaaga erayada laxankada ay sameeyay aadiyaad marka laga soo tago inaad adigu heesto masraxa aad karto erayada abwaanka ku sameeyo inkastoo aan soo wado hees erayada adigu aad sameysay kamid ah isaaga loogu jecel yahay waliba kuwii dambeed soo saartay kamid ah inaad hal abuurtod wax isku daydo sida isku tii erayada celiso erayadaas ana sameystay heesta jamasho aadiyaad waxaana waa maxamed biikeeda heesta hore waxa uu xanuunsan jawaab dan qaado oo sida erayadana sameystay heestii kugu horeysay erayadeeda aad adigu sameysato ama wixii kugu horeeyay hal abuur isku daydan yaa mise mar walba waa heestaas ugu horeysay haddana waxaan afar cisho ka hor sameystay hees sida ana sameystay erayada waxaan kana saartayba alla ilaahay muna marka waana heesaysaa adigana abwaan isku ah oo heesahaagii sameysanayo waa heestii ii soo lugeysaan erayada sameysto waxaan kana naga saartay oo hees labaad iyadana soo bixi doonto adigu aad sameysay heesta jamasho aan guriga daawadayaasha u ciyaari doono erayadeeda waa hees dabcan 100% waliba ay jawaabteeda yaxdalno sheegay cabasha ay tahay oo erayada dabcan ay yihiin biyo kama dhibcaan erayo aad u qurux badan oo hees aad u qiimo badan ay tahay heestaasi goodhow ayaan daawadayaasha u ciyaari doonaa laakiin jawaabteeda yaxdalno sheeg ma waxa jiray dalab adiga munaxafiisiisa jawaabteeda ma adiga ugu dhalatay sidee ku timid jawaabteeda aniga ugu dhalatay habeen iska dhageysanayo oo إحساء هذا الميهاب أكاسا إري وصل بعد أنا هيست بيجسنايا
marka waxaa sameeyey naga igu jira iPhone dhageysanay sida heestii asigoo markuu qaadayo aniga la qaadayo laakiin ereydiisa kuma la qaadaynin waad ku siyaadinaysa ama maskaxdeeda ka soo macna go'ay oo adiga sameysay aan ku korsamay sida isla markaa weesiisiyaan dumiya adkeendooda waad sameysay guriga daawadayaasha heestaasi jamasho waa u ciyaari doonaa inagu dabcan caawa heesuhu ay yihiin hadabad oo madaxdiisa ayna ka dhammaanayn caawa intayna ku guda jirno dadkuna ay aada u xiisanayaan weliba u jecel yihiin dhanka heesaha inay la socdaan heestaasi guriga ayaan u ciyaari doonaa daawadayaasha balse kahor markii ugu horreysay muqdisho ka baxdeed gobolada aado waxaad gaartay baydhabo banigii kugu horreey aad kusoo qabatay ma jirtaa meelaad qorsheynayso ama aad isleedahay tag kusoo qabo bandhigyo ama showyo sida sanadka cusub oo kale ama fanaaniintu xilliyo gaar oo waxaa jira ay qorshaystaan inay aadaan magaalo kale ama dalka dibadiisa ma jiraan qorshooyin ku degsan sidaas ها إن شاء الله إن ما أنت أحدا عن سفر أهاي بدأ كوسي جيبا أدي سرت كوسي ربنا حدث برنامج شو أحكي لكم عندي فنانين تيبا دمونا هذا كتم بيدوان كل عوض يا كم دماني ست قرر رجيني زمرك مقالوي كره سومالي زي نادقارتو مادام مقالة بيدو شو قال لما تقول دونتو ميلا بدون واتقين إجراء جوهرنا وان تغيشو مكسر مقالة جوهر أنا وحن أخذ قال الشوقي حمد يرشو جوهر كل بيته أي كو قبنيسي وسيدا فنانين تبدأ غير مقدشو جوغا مركز لدهو ama gabdhaha ama wiilasha fanaaniinta dambe ayaa isku dhowdihiin oo naxariis dhankeeda marka la yiraahdo waxaan isugu doonahay saaxiibtay mar aad igu qaaliya ana bacawo ana saalex sidoo kale walaashay Nabira Meerus shaadiye sharaf isku doonahay marin gabadhii la socotay marin abu waa sida waa dabcan isugu doonahay ana bacawo أنا بعوض كم فنانين سداد يرينا مقدشوا نقن وسلامنا جودها فنانين تعايشوا هذا القضاء من حفظ عو برامج مرتقى يستجمعوا بدكوا هذي يسمى قالوا سيديار جروبي يستجمعوا حتى متى أنا وجعله أنت بدنا نلقيستو هي ساعة مثل من حفظ أنا عن جعلان لا أنت على طول ما دام هي سوينا جوابتي ده يحضر مش عوشاي كهاي codkaaga bal erayada inaad wax nagu maqashiiso inkastoo beedyada ay ama qaybaha kala duwan ee heesta ay mid walba xiiso gooniya leedahay in ka mid inaad codka nagu maqashiiso inta aan muusiga la garaacin heesta jibaan raaxa moodaya jamashaan jirid moodaya jilaal bayr moodaya jaanaan hadaa moodaya jacaylku jihaad miyaa mamida laga jeedsamba maxay jirabaya aniga alla aniga tigaanta ku saraya adiga macbisa inta ay ugu ekay ayadoo muusigii oo dhameystiran ayaan markan ciyaarayna waxaanan kuleeyahay ilaahay ku siiyay codkaaga macaan dabcan waxaaba jirta munay in adigu markan ku iraado heestiyo bila muusiga isku kalsooni badan aad dareemayso maadaama erayaduna adigu aad sameysay heestana waa mid si qaas kalsooni badanna waa qabtaa hore u sii socon kuleenahay heesta jamashan ka dalbanaya qaybta farsamada waa hees ka mid ah heesaha lagu jecel yahay maxbis ay ku luuqeyso idin kala baxay heestii jamasho jawaabteeda yaxdal norshiyo heestii cabasho iyo maxbis
jirabaana hadiga adaan ku jeclaanahay daartaan kuya anfaca midnaba uma jeesta ah naftaan ku jirabaana hadiga الله له دي بنوغا سو علي هستي مقاده انغو دن
heestii jamasho dabcan waxay ka mid tahay heesaha munaay ay dadku sida aadka u jecel yihiin weliba heestan erayadeeda adigoo munacadiya hadda kaa soo maaxatay oo dabcan hees aad u qiimo badan erayadeeda aad u qurux badan yihiin wax badan oo kalena ay kugu duwan yihiin munaay erayadan heestan iyo muusiga quruxda badan ee heestii cabasho jawaabteeda ahayd ee munaxdiis ay ku luuqaysay intaasaynu kaga soo laabano muna heestan mar labaad ma ku ceshinaada ya mar labaad mana waa qaadi doontaa haddaad doonto aad iyo aad kama dhargeyno siday maaragtay aan u jecelnahaa maaragtay aad iyo aad heestu ay u weyn tahay fanaanadeena munaxfiis ayaa caawa barnaamijka qayb ku ah markaasi qaybta masraxa fanka oo daawadayaal toos aad kaga daawanaysaan muqdisho cable TV waxaana markaasi dib aan ugu soo laabanayaa muna inagoo kaalmaheeda suugaanta caawa haddii dadku ay in badan ka hirqanayaan oo munaxfiis heesaheeda ay caawa muqdisho cable inta ay daawanayaan masrafa dadka ay ka bogan doonaan kuwa kalena ay noo sii harsan yihiin weli munay naanaysta munaxfiis maxay kugu baxday horta dad badan baa isweydiiyey muna markii la yidhaahdo la garay munaxfiis maxay kugu baxday xafiis waxay ugu baxda aabahina neestiisa la dhahaa xafiis aabo xafiisana neestiisa aad iyo aad waa abtirsimo markaa dhawaato aad iyo dad badan isweydiinay munaxfiis naanaysta xafiis maxay ugu baxday wala xafiisyo badan oo furfuran caawi dabcan ogaanayaan munaxfiis inay tahay magaca si abtirsimo ku wadato aabahina neestiisa aad iyo aad munay in aad fanaanad noqoto waxaad hiddo u hesho qoyska waxaa jira dad fanaaniina ama fanka ku dhow mise wax adiga ku gaar ajin qoyska waxa aabo ay maartay mahawriyaal ay joogaan aad iyo aad sida muxuu ahaa maxamay anjilisa karbona waa sida shooli aad iyo aad sida fanaaniin waaweyn kooshin yare aad iyo aad kooshin yare isna fanaan dabcan qiimo badan waa sida way munay ma jira fanaan aad isleedahay dhanka ragga markaan eegno hees lamaana la qaad oo la kulan aad isleedahay oo adigu aad xiisayso shakhsiyan oo hees lamaana inaad la qaada jeclaan lahay waa kuma fanaankaasi najib alfa هلا نجيب ألف وهذا قلقلة فانك مركي اللي يراهدو فنان يسب بدنو آد قروح بدن سو سارة واصل هذا منحفيز نجيب ألف هيس لما أنا ودلق هذه هاي المرون هذه أدلق كلامتو فرجيني إن طبعا أدلق كل مدونتو يسب بدن أدلق هذا دونتو ما دام كم جي فنانين تفر فرعون دلنا هذه قمنا أنا أتكلم تاع فنانين تأوبح أو عاصمة مركي اللي يبغوا وهيسوا ضدك أي وجع لهين ما heesaha aad qaado ma jiraan heesa ka baxsan jaceylka oo adigu aad qaado hadii ahaan lahayd wadaniyada kale ama waxyaabo kale aad kaga hadlaysid marka laga soo tago dhanka jaceylka oo heesaha ay badan yihiin ma jiraan waxaa jirta hees cusub oo wiigi hore soo baxday oo wadani ah isnaan ku ammaanayo xasan cali kheyre waayahay waa hees wadaniya waa sidaas munaxfiis dabcan heesaha wax iskugu jiraan dhanka wadaniga oo aad qorsheynaysaa heesa kalena aad soo qaado dhankii jacaylka iyo madadaaladii bulshadiina aad in badan u hayso heesahaaga aad qaadee faraha badan tan kugu saameynta badan waa haystay isleedahay ama adiga shakhsiyan ku taabata ama dadku ay ku yiraahdaan heesaasan u jecelnahay heesahaaga dadku waxay jecel yihiin heesta xiriir barnaamijkan kusoo xiran doonaa oo anagoo barnaamijka qaybihiisii dambe marayno guri waan soo xiri doono heestaas xiriir ayaa heesta kugu saameynta badan guri waa barnaamijka kusoo xiran doonaa munay waxaan rabaa in aan dabcan kuweydiiyo marka laga soo tago heesan hadda aan guri dadka barnaamijka kusoo gabagabeyn doono xariir waa xiriir dabcan waa heestaasi xiriir ma hees adiga ku taabanayso adiga lagu sameeyo adiga kaa tarjumaysaa mise waa hees baan ku dhiib waa hees iga tarjumaysaa oo adigoo taabanaysa waxaad ka mid tahay fanaaniinta dhanka gabdhaha marka la yiraahdo kuma amaanayo muna kuura fadhisa caawa ismaliyaata ugu jalaqsano dadka heesaheeda iyo muuqaal ahaanteeda isteel ahaanteeda u jeceleen dad
kaala taliya dhanka muuqaalka iyo lebiska iyo markaad heesaha soo saarayso mise wax model ahaan adigoo muna ku gaara waxaan gaaraya inaad muuqaalada quruxda badan dadku ay xiiseeyaan heesaha muuqaaladooda dabcan waa wax adiga muna ahaan ku gaara ama barnaamijkan soo xiri doonaa maxaad is leedahay fanka waa laga dhaxlaa sidiisaba fanka waxaa laga dhaxlaa magaca keliya bas waa un magac oo sida heesta xiriiraan barnaamij kusoo xireynaa waqtiga aad noo hayo waa jeclaan caawo inaan isla sii joogno in badan waqti kala sii qaadano fursada barnaamijka masraxa fanka adigoo ka faa'iideysanaya yaad jeclaan lahayd caawo inaad halkaan salaan u mariso oo ku daawanaya ama kula socday ama cid adiga fankaaga kugu soo gacan qabatay oo halkan kaga soo mahad celinaysa caawo yaad jeclaan lahayd halkaan salaamtiga caawo inaad u mariso waxaan salaamayaa in dadweynaha Soomaaliyeed meel walba joogaan inta maqalkayga muuqayga taqaana gaar ahaan waxaan si khaas u salaamayaa aabahay aan aad u jecelahay Cabdi Cali oo ku magac dheer Cabdi Xafiis aabahay aad u jecelahay aad u salaamaya walaalahay Maxamed Xafiis Saalax Xafiis Umar dhamaan familkayga aan salaamayaa iyo asxaabtayda meel walba joogaan gaar ahaan waxaan si khaas u salaamayaa saaxiibtay Canab Cawa dhamaan Nur Kalsooni Maxamed Mursal Cali Suuriya weriye oon aad u qadariyo Xasan Toob aad u salaamaya Xasan Cabdi Cali Xasan Toob aad u salaamaya kaamiristayga khaaska Saalim Saciid dhamaan asxaabta dhan aad u salaamaya heesta xariiran dabcan xiriira barnaamijkeena kusoo gabagabeynayna heestan munay erayadeeda ayaa sameeyey laxanka iyo muusika iyo israaciya bal heestan barnaamijkan kusoo heesta waxaa sameeyey abwaan Saadiq Laab Saalex laxanka waxaa iskale Asad Beere oo sida muusika waxaa iskale Ustaad Subxaano Yuusuf Subxaano waa isla isugu tago dabcan aan lagu kala harin barnaamijkan kusoo gabagabeynayna heestaasi xiriir aad u mahadsan tahay muna aan ku faraxsanahay caawa barnaamijkeena masrax fanka in qayb aad ka noqoto halkan aan ku horkeeno barnaamijkan aad qayb nagala noqoto aad ugu mahadsan tahay muna waana ku sidoo kale waxaan salaamayaa oo maaragtay ifuday barnaamijkan walaalkay Cabdirashiid Rashka sida walaalkay Khadar adiga aan ku salaamayaa aad iyo aan salaamayaa oo sida guud ahaan asxaabta muna aad u mahadsan tahay dabcan fanaanadeena daada yareen jecelnahay dhamaantaanba in caaw ay halkan noo joogto barnaamijkeena qayb nagala tahay waan ku mahadnaqaynaa muna aad ugu mahadsan tahay heesta xiriirka barnaamijkeena kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysay anigoo Fasin Shaafiya dhanka kaamirada isku xirka iyo farsamada quruxda badanna waxaan kaga mahadnaqayaa DJ-ga barnaamijka dabcan muusiga noo tumaya ee heesaha ay noogu luuqeynayso fanaanada Muna Xafiis caawina la joogta waxaan u mahadnaqayaa sidoo kale Qadar iyo dhammaan saaxiibada kale iyo Saacdiyo oo fududeynta barnaamijka iyada Cabdirashiid baqayb ay ka yihiin waan u mahadnaqayaa muna adna aad u mahadsan tahay heestan kusoo gabagabeynayna barnaamijkeena waan mar kale iyo halkan waa ku kulmi doonaa hadii nagu simo aad u mahadsan tahay muna heestaasi xiriir ayaan daawadayaal idinkaga tagayaa guud ahaan barnaamijkii masraxa fanka caawa naga inta eeba nagu sumi doono barnaamijkan laacayna iyo habeen dambe waa inoo sidaas nabadgelyo guud ahaan waad ku mahadsantihiin dadka naga daawanaya baraheena bulshada YouTube-ka iyo Facebook-ka ee barnaamijka muuqaalka iyo shaashada waa markaas barnaamijka hadda live-ka iyo shaashada Muqdisho Keebalba idilkiin bood ku mahadsantihiin la socodka barnaamijkeena sidaas nabadgelyo heestii xiriir iyo Muna Xafiis gabagabada barnaamijka
xayil xiskaygaan ku kaydiyo laabta laabtayda ugu xafidaa لكم نقضى واللي بحكمة بحجة حيل حسكيغان كوكيديو لابتا لابتايدا توقو حفظا حلقيدي أبكابو حقيدي قرب مرة عشق حق الداعي وحمانتايا ورسلي حلقي أذكبه حقيقي قرب مرة عشق حق الداعي وحمانتايا ودي ورسلي شرائي حريقي عريقي عطشري مشبهي مساء أرمي حرقا بنتها يا نفسي وإي نفسي بصاحبها شبهي مساء أرمي حرقا بنتها يا نفسي بصاحبها حشو واللي بحققني قطع الحرمنا بكوهيو نية ضيدا كوه الحراي أنا أردت حشو واللي بحققني قطع الحرمنا بكوهيو نية ضيدا كوه الحراي حلمة السيار أكبر يروح السماء أني بكون حيسي مركلي قيسو حضري هادت حلمة السيار أكبر يروح السماء أني بكون حيسي مركلي قيسو حضري حريقي وبيبي عطشري مشبهي مساء أرمي حرقا بنتها يا نفسي بقصاحي حريقي بحبي لتشري حريقي وبيبي عطشري مشبهي مساء أرمي حرقا بنتها يا نفسي
nafsigu ku saaxiibaa